بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waxaan ka hadlaynaa midhahaas. waa midho dabiici ah. waxaa la yiraahdaa geeda adari, uura waaweyn, coriander, kiyoshahi watas. habeenkii haddaad doonto biyo baylaad kusii qoysanaysaa 2 malqaacadood. aroortii baad cabaysaa. haddaba maxaa tahay coriander? maxaa tahay uura waaweyn? caafimaad ma leedahay? faa'iido ma laga helayaa? qiimahaaga muxuu yahay? runtii dawada yar ee halka taala, midhaha yar halka yaala qiimahooda ma soo koobi karno haddaynu halkan ka akhriyeysnaahno. waxay wax ka tartaa horta qofkii doonaya inuu cayilka dhimo oo weyd luuso wuu qaadan karaa. waxay wax ka tartaa dheefshiidka oo digestionka loo yaqaano. waxay leedahay vitamin C iyo vitamin K. fiber baa laga helaa. liverka iyo beerka iyo caloosha waxbay u tartaa. bakteeriyada fiican ayay samaysaa. dibirada iyo bloatingka waxa loo yaqaan ayay wax ka tartaa. gaasta number 1 bay ka tahay. dadka gaasta leh way u fiican tahay. waxay leedahay dhiigga kordhisaa. maad maqasheen idinku? dhiiggay kordhisaa. waxa ka ah haddii dhiiggaaga uu kordhi waayo waad ogtahay inaanad shaqayninba. oxygen badan bay xataa jirkaaga siinaysaa. waayo dhiiggu waa important. waayo wuxuu inoogu fiican yahay inuu maskaxdu aada u shaqayso iyo inaynu energy helo, labadaba inaynu dhiig fiican haysano. waxa weeyaan waxa qashinka jirka ka saara. waxay bakteeriyaday dishaa. waxa weeyaan diabetic hoos u dhigtaa macaanka. timaha daata waxbay ka tartaa. biyaheeda haddaad madaxa ku maydho intaad radiso iyo haddaad cabto waa isku mid. weliba cabadday kasii wanaagsan. waxay waxu tartaayo number 1 ah thyroidka waxa la yidhahdo oo aan maanta usoo qaatay. waayo inagu wax badda ma cuno. thyroidka hooseeya dumarka waa ku badan yahay. soomaalida weliba aada iyo aad buu inoogu badan yahay thyroidka hooseeya. marka thyroidkaasay aad wax uga tartaa bahashani. thyroidka la-aanteedna dadku waxaad isku arki dhibaatooyin fara badan, laakiin aada uma naqaano. waayo ilaa lagaa qaado ma garanaysaa dhiig inuu thyroidku hayo iyo in kale waruma haysid. marka haddii aad thyroid leedahay bahashan habeen iyo maalin ka isticmaal. biyaheeda isticmaal. iyada oo aan budo ka dhigay basbaaska kayana beebar baan ku darsadaa. xataa shaah baan ka dhigtaa markaan iyada iyo basbaaska kayana beebar isku darsado. basbaasyada number 1 weeye kayana beebar. waa kan kayana beebarkii saasaad inugu dul daadinaysaa. markaad saa inugu dul daadiso kayana beebar waa basbaaska waa number 1 basbaasyada. aad saa ugu dul daadiso saasaad ugu walaaqaysaa. cuntadaadaad ku dul darsanaysaa. waan saloolay. intaan saloolay saloolka ma garanaysaan? daawahan ku saloolay markii hore. markaan saloolay ayaan dabadeedna sidaa u shiiday. markaan shiidayna waa kan imika macaanka. marmarna anigu iskeed baaban shaah uga dhigtaa intan oo marna afkaan iskaga shubtaa. qaadada iyo bariiska iyo waxaasaan ku dul cunaa markaan cunayo. waa cunto caaqiibo leh. aada iyo aad bay u wanaagsan tahay. aan la moogaan oon laga maqnaan. waxyaabaha thyroidka caawiya waxaa ka mid ah waxyaabaha badda ka soo baxa. waa lowga ka ah maaha ka fiixda soo baxda ah. waa fiixda hoose. dhiig lagaa qaada mooyo si kalena laguma ogaado. markaa dadkeenna maadaama oo aanay waxa badda cunin wuu ku badan yahay. waxa baddaana laga helaa iyo beedka iyo waxyaabahaasaa laga helaa. markaa mar walba wixii ku habboonaa mar haddaanad helayno midhahan yar ilaahay kuu geliyo wanaaggii iyo nimcadii. iska karso sida shaaha u karso sida biyaha u cab. suuqeenii hindhisadaan ku noqday. qiimayna lamay lahayn laakiin maanta qiimo ila leedahay. aqalka waa inaanay ka dhammaanin. mar raashinka ku dar. iyadoo waxaa jirta kolka hore ilangeeda adaridu xataa waxay leedahay caleentaa shaaha sidiisii u karso. kan uura waaweynta sidan oo kale biyo kulul intaad ku shubto habeenkii radi aroortii ka cab. faa'iidada ay leedahay wax dhiigga kordhinaya bal ka warrama idinku. haddaan dhadaan midhaha yaryari dhiiggay kordhiyaan. suuqii hindhisada Hargeysa ma la wada fadhiisanaya mise lama fadhiisanayo talo? ma la wada tegaya? midhahay kordhiyaan. haddaan idhaa dhiiggay kordhiyaan. oxygen badan bay jirkaaga siinayaan. ma aayan wax ka wanaagsan jirkaagu vitamin K oo jirkeena regulationkeeda ka shaqeeyo jirka ka shaqaysiiya ayay leedahay.
فيتامين سي bay leedahay xataa haddaad timaha ku maydho haddaad wejiga ku maydho biyaheeda aad iyo aad bay u wanaagsan tahay insha allah waxyaabo kale oo badan oo ay tartana waan kasoo sheekayn doonaa waxa maskaxda u wanaagsan bay ku tahay waxa maskaxda u wanaagsan wax ka qiimo badan baa jira midho yaryar oo macno lahayn bay imika inala leeyihiin laakiin faa'iidada ay xambaarsan tahay ka badan midhaha marka waa inay waxa aqalkeena yaal haddaynu barano oo aynu kun waxa ay leedahay kasoo sheekeeyay marka waxaas oo dhan waxa leh waa inaad ku dadaasho inaad aqalkaaga ka dhamaanin waxna kuu tarayo waxna ku yeelayn wabillahi tawfiiq salaamu calaykum